howlgalladii ugu dambeeyay oo ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanka Jabad Godani oo lagu dilay wax ka badan 550 qawaariij ah oo 80 ka mid ah yihiin ajaanib. Golaha wasiirada xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo yeeshay kulankoodii caadiga ahaa ayaa cod aqlabiyada ku ansixiyay soo jeedinta wasaaradda gaashaandhigga oo ah magacaabista taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaas oo loo magacaabay General Ibrahim Maxamed Maxamuud oo leh khibrad ka badan 18 sano oo xagga ciidanka ah aqoontana ka gaaray heerka labaad ee jaamacadeed. Kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay amniga iyo dib u xiraynta deegaanada ay ku sugan yihiin qawaariijta iyo guulihii ay gaareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Kulanka golaha oo shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa lagu bogaadiyay howlgalladii ugu dambeeyay oo ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanka Jabad Godani oo lagu dilay wax ka badan 550 qawaariij ah oo 80 ka mid ah yihiin ajaanib. Dhanka kale golaha ayaa magacaabay guddi heer wasiir ah oo ka kooban 6 wasaaradood oo looga hortagayo tahriibka. Ugu dambeyntii golaha wasiirada ayaa ansixiyay axdiga dhisidda hay'adda caalamiga ah ee dhexdhexaadinta oo ay soo jeedisay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xeer nidaamyaha diiwaangelinta gaadiidka badda oo ay soo jeedisay wasaaradda gaadiidka badda.